bismillaahi raxmaani raxiim waxaan u wanaagsanaa qayaarta hawada naga daawanaysaa kusoo dhawaada warka telefishinka Hillaac qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonayo gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo kulan la qaatay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cusmaan taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo sheegay in ay la wareegeen deegaanka Ceelbaraf ee gobolka Shabeellada Dhexe wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada xukuumadda Soomaaliya oo maanta daafuray shir wada xaajood ah oo ay ka qayb galeen shirkadaha isgaarsiinta dalka dowladda Soomaaliya oo war ka soo saartay wadaad caan ah oo lagu dilay magaalada Muqdisho wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo maanta Muqdisho ka daafuray ololaha talaalka caruurta maamulka gobolka Shabeellada Dhexe oo beeniyay in deegaanka Nuur Dugle ay isaga soo baxeen ciidamada dowladda Soomaaliya xeer ilaaliyaha dalka oo amray in la soo xiro gudoomiye ku-xigeenka deegaanka Garas Baaley ee duleedka magaalada Muqdisho intaasina waxay ahaayeen qodobadii wararka ugu waaweynay ee telefishinka Hillaac